بسم الله السلام عليكم ورحمة الله معي وإبراهيم حسين علي waxaan kamid ahay ardayda dhigata Hagaag Academy oo akademiyad diyaarisa dhalinyarada u diyaarisa inay communication ka dhista iyo hogaaminta Hagaag Academy for Leadership and Development runtii waxaan barnay koorsooyin kala duwan oo ilaa haddana aan qayb qaadanay qaybna dhexna marayaan maadooyinka si fiican u soo jiitay waxaa kamid ah critical thinking taasoo qofku inuu iska dhiso xagga fikirka iyo maskax tuujinta sidoo kale waxaa kamid ah personality styles and strengths oo awoodaha qofka uu leeyahay inuu barto waxyaabo uu ku fiican yahay iyo waxyaabo uusan ku fiicnayn inuu qofka kala barto aslanba oo shakhsiyadiisa barto sidoo kale tan oo markaa u gudbo oo barto dadka kala duwan iyo shakhsiyaadkooda oo barto runtii maadooyin wax ku oolay ahayd aniga meeshii markii hore aan ka soo raacay waxay ahayd social media gaar ahaan Facebooka markii aan imaaday akademiyadan waxay noqotay meel muhiim ah oo noloshayda aan ku baran karo xirfado aan wax badan uga bedelo insha Allah dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay koorsooyinka noocaas oo gaagaaban ay ka faa'iideystaan inta jaamacadda dhigata inta iskuulaadka dhigata iyo guud ahaanba wixii qofkii raba in noloshiisa wax ka bedelo koorsooyin muhiim ah oo haddana noo socda wayna aan rajeynaa insha Allah taala inaan intaas in ka badan aan sii barno akademiyad waxay noqonaysaa insha Allah nolosheena wax ka bedeshay iyo mustaqbalkeena higsanayna insha Allah taala waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.